kusoo dhawow caalin online. luqadda ingiliishku waa luqadda ay ku hadlaan dadka ugu badan adduunku, taasina waa sababtay in cilmiga intiisa badani uu ku qornaado luqadda ingiliishka. qof kasta oo aanu dhalan luqadanina waa keentay in uu waqti badan ku bixiyo sidii uu u baran lahaa luqadda ingiliishka. haddaba haddii aynu Soomaali nahay waxaynu ka aaminsanahay waxyaalo aad u kala duwan barashada luqadda ingiliishka. haddaba qaabkan ugu wanaagsan ee aad ku baran karto luqadda ingiliishka ayaa ah in aad taqaano kelmado badan oo English ah. tusaale ahaan show, itus, me, aniga, this, can, pen, qalin. tusaale ahaan intaas oo kale waxa aad ka samayn kartaa jumlad. haddii aadan intaas oo kelmadood garanayn kama samayn kartid show me this pen oo macnaheedu tahay qalinkan itus. haddaba caalin online waxa uu ku barayaa luqadda ingiliishka qaabka ugu fudud ee ardaydu ku fahmayso, qaabkaasoo ah in lagu baro laguna xafidsiiyo shay walba waxa lagu idhaaho English. tusaale ahaan haddii aadan garanayn waxa albaabka English lagu idhaaho kama hadli kartid wax albaab ku saabsan. haddaba kooraskani waxa uu socon doonaa muddo 6 bilood ah. muddada 6 bilood ah waxa lagu gaarsiin doonaa heer aad qori karto, akhrin karto, kuna hadli karto luqadda English iyadoo lagaga bilaabi doono heerar kala duwan sida haddii aad tahay bilow, haddii aad tahay dhexdhexaad, hadda heerka aad taagan tahay ayaa lagaga bilaabi doonaa. dhammaan casharadu waa maqal iyo muuqaal, sharaxaadda lagugu sharaxayana waa af Soomaali. dhammaan casharada waad la degi kartaa, maalin kastana casharadaada waxaad ka helaysaa adigoo isticmaalaya moobilkaaga ama kombiyuutarkaaga. meel kastoo dunida kaga sugan tahay waad baran kartaa koorsadan iyo dhammaanba koorsooyinka kale ee caalin online ka baxa. sidoo kale waxaa lagu siin doonaa caawimaad buuxda muddada koorsada aad ku guda jirto barashadeeda. ardayda kooraskan barantaa waxaa kaloo ay heshaa practice iyo wada sheekaysi buuxa oo maalin kasta ah. haddaba haddii aad jeceshahay inaad ka mid noqoto ardayda koorsadan ka barata caalin online, keliya waxaa lagaga baahan yahay in aad riixdo halkan hoose ee ay ku taalo book now. muuqaalkan waxaan kugu tusin doonaa habka aad ula soo degayso applicationka caalin iyo sidoo kale sida aad iskaga diiwaangelinayso abka caalin iyo sidaad koorso cusub u iibsan lahayd ama aad uga dhigan lahayd wax applicationka caalin. marka ugu horeyn waxaynu booqanaynaa ama aynu tegaynaa google-ka ama google chrome-ka hadda ka kugu jira. kadibna google chrome-ka marka aynu tagno isla markaaba halkaas sare waxaynu ku qoraynaa caalin.com. mar walba iska hubi caalin waa 2 weeyaan .com saasaad u qoraysaa. intaa kadib marka aad qorto goobaad leedahay. intaa kadib marka aad website-ka timaado waxa aad la degi doontaa haddii aad qof cusub tahay applicationka caalin baad ugu horeyn dejisan doontaa adigoo riixaya halkan ay ku qoran tahay gal fasalka. gal fasalka marka aad taabato waxa uu kuu sheegi doonaa in aad applicationka la degto caalin. marka isla markaaba gal fasalka marka aynu taabanay halkan hoose waxaynu ku arkaynaa meel laynoogu sheegayo la deg applicationka caalin. halkan aad arkayso add caalin academy to home screen buu ku leeyahay. marka add baad leedahay halka ay ku qorantaa taabanaysaa. intaa kadib boggan yar buu ku tusinayaa wuxuu ku leeyahay caalin academy caalin.com install baad taabanaysaa. kadibna install oo macnaheedu tahay ku install gare applicationka mobilkaaga. marka intaa kadib cabaar yar baad sugaysaa. isla markaaba wuxuu ku ogeysiin doonaa in applicationkii uu kugu dhacay telefoonka kadibna uu ku install gareeyay. marka intaa kadib waxa aynu tagi doonaa shaashada telefoonkeena oo cabaar baynu yara sugaynaa laakiin inta applicationku inoo soo degayo. haddaba saad hadda arkayso applicationkii wuxuu ku leeyahay caalin academy added home screen uu ku degay applicationkii buu ku leeyahay. waa kan applicationkii halkaas soo istaagay. saad arkayso abkii caalin baynu hadda dejisanay. marka applicationka caalin soo fur kadibna si aad isaga diiwaangeliso haddaba inaynu isdiiwaangelinayn rabnaa waad soo furaysaa applicationka. haddaba abka caalin marka aynu soo furno isla markaad saa soo furtaba wuxuu ku dhahayaa horta marka hore waa in aad isdiiwaangelisaa. haddaba qaababkeeba la isku diiwaangelinayaa applicationka caalin waxaad iskaga diiwaangelin kartaa 2 hab. inaad sign in with google taabato oo aad isku diiwaangeliso gmail-kaaga iyo in aad magaranaysaa isku diiwaangeliso facebook-gaaga. haddaad sign in with facebook taabato facebook-gaagu kugu xiriirinaya oo uu kugu diiwaangelinaya. haddii aad sign in with google taabatana gmail-kaagu kugu diiwaangelinaya. marka intaa kadib sign in with google baan taabanaya si uu gmail-kayga igu diiwaangeliyo aniga. haddaba sidaynu halkan ku wada arkayno imika waynu isdiiwaangelinay. markaad akoonkaaga gasho ama isdiiwaangelinta aad ku guulaysato waxaad arkaysaa kur yaroo halkaas soo istaagaya oo kurkaa yar baad arkaysaa ama sawirkaagaba soo istaagaya hadduu sawir ku saaran yahayna. marka hadda waxaynu ku guulaysanay inaynu isdiiwaangelino. marka hoos baynu wadaynaa koorsada aynu rabnaynu dooranayna. imika koorso aliya koorsada aad doontaad iibsan kartaa ama aad iska diiwaangelin kartaa. imika tusaale ahaan oo kale koorsada ingiliishka ama rabaa inaan iibsado waa 6 bilood macluumaadkeedu waa halkaa ku wada qoran. marka waad dooranaysaa koorsadaad ku dhufanaysaa. waxaad arkaysaa koorsada qiimaheedii waqtigaad ku baranaysay
bishiiba inta lagaa qaadayo beermont waa $6 weeyaan 6 bilood baanaad kaga qalin jebinaysaa koorsadan marka waxaad taabanaysaa take this course si aad u iibsato koorsadan take this course baad taabanaysaa haddaba sideed lacagta u bixinaysaa lacagta waxaad ku bixinaysaa saad sahal ebir evc intaaba waad ku bixinaysaa marka halkan waxaad gelinaysaa lambarka aad lacagta ka dirayso ama aad ka bixinayso waxaan gelinayaa tusaale ahaan 63440 lambarkaygan gelinaya lacagta ka dirayo kadibna bixi hadda lacagtan taabanaya isla markaaba waxaa kuu soo baxaysa ma hubtaa inaad lacagta bixiso oo Caalin Academy aad ka iibsato koorsada ma hubtaa baa lagu dhahayaa markaba saadaada ama EVC-gaaga fariintan baa soo boodaysa kadibna waxaad leedahay passwordkii saadaadaad gelinaysaa ama passwordkii EVC-gaaga marka aad biinka geliso saadkaaga ama EVC-gaaga ama sahalkaaga marka aad iibsato isla markaaba wuxuu ku tusinayaa inaad Caalin Academy aad ka iibsatay koorsadan kadibna okay baad leedahay inta kadib boggan buu ku keenayaa marka si aad koorsadii aad iibsatay aad u dhigato halkaa loogada sare Caalin ay ku qoran tahay riixaysaa tagaynaa gal fasalka halka ay ku taalan tagaynaa gal fasalka marka aynu taabano isla markaaba waxa aynu galaynaa ama aynu helaynaa casharadii ama koorsooyinkii aynu iibsanay baa inoo soo baxaya kadib waxaad imanaysaa halkan saad halkan ku arkayso waxaad arkaysaa active macnaheedu waxa weeyaan waa koorsooyinka active-ka ah ee diyaarka u ah in aad barato marka koorsooyinkan active-ka ah waa kuwa aad iibsatay ee lacagtooda aad bixisay ee aan ka expire garoobin weli haddii koorsadii aad iibsatay ay halkan isa soo dhigi weydo oo ay kuu soo bixi weydo waxaad samaynaysaa halkaa yare saraad farta saaraysaa kadibna hoos baad u jiidaysaa page-ka kadibna refresh wax la yiraahdo samaynaysaa inta kadib way ka soo dhigaysaa halkan hadaad ka weyday markii hore marka imika koorsadan iibsaday markii dhaweyd waxay ahayd koorsadan Englishka ah start bay soo baxaysaa ama continue marka koorsada Englishka haydan iibsaday waatan marka continue baan taabanaya inta kadib continue markaan taabto haddana mar labaad waa inaad taabataa kadibna marka boggan buu ku keenayaa casharadii buu ku dhex keenayaa marka heer baad sugaysaa marka casharadii koorsadu ku dhex keenayaa marka saad arkaysaa halkan waa lesson 1 weeyaan lesson 1 ayaad imika soo gashay marka cashirkii koowaad waa kan waa koorsadii Englishka imika dhiganaynaa marka koorso walbana sidan aad u dhiganaysaa noocan oo kale kugu soo baxaysaa oo aad uga dhiganaysaa Caalin Academy marka muuqaalka haddaad rabto inaad daawato waxaad taabanaysaa halkaa yare muuqaalkaad ku dhufanaysaa marka muuqaalka uu soo baxaya haddaad rabto inaad cashirka la degto halkaa download ay ku taalaa taabanaysaa marka si aad u weynayso si aad cashirka u weynayso si weyn lagugu tuso halkaa yare falaadhaas taabanaysaa marka falaadhaha yare marka taabato si ballaaran buu cashirka soo baxaya marka casharada koorsooyinka Caalin aad ka dhiganayso dhan noocan bay kugu soo wada baxayaan marka insha Allah inaad fahantaan rajeynayaa qaabka loo dhiganayo casharadana marka aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay wixii kale ma garanaysaa faahfaahinana WhatsApp-kaad nagala soo xiriiraysaa halkan inta taabato WhatsApp-kaad fariin noo soo dhigaysaa sidoo kale course waliba wuxuu leeyahay group WhatsApp oo ma garanaysaa ardayda ay isugu timaado marka groupka WhatsApp-ka haddii aad rabto halkaas taabanaysaa kadibna markaba groupka WhatsApp-ku kugu xiriirinaya aad ku biiraysaa aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay cashirka xiga si aad u dhigato halkan hoosun baad taabanaysaa isma weli weysidba halkan hoose lesson 2 ay ku qoran tahay baad taabanaysaa cashirka labaad si aad u dhigato lesson 3-gana haddana halkaa hoosun baad taabanaysaa haddana marka waqti baa lagu qabanayaa mar walba cashirka ku xiga si aad ma garanaysaa kii hore aad u xiftido oo aanad iskaga boodboodin waqti buu ku qabanayaa application-ku aad ka hore waa inaad soo daawataa baa lagu leeyahay marka waqtiga kadib buu kala baad ku furmayaa si aad ugu noqoto kii hore falaadha yare dibtaad taabanaysaa kadibna waad ku noqonaysaa marka qaabkaas aad uga dhiganaysaa casharada aad iyo aad baan ugu mahadsantahay daawashada